diro intaa kadib waxaa la yidhi nin baa waxaa la yidhi 3 nin u timid marka hal su'aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi dadkii bulshadaada waxaad jeceshahay inaad aragto adoo waxba ku darsan ama lacag ku bixin in ay noqoto bulsho horumar gaadhay ninkii ugu horreeya wuxuu ku jawaabay waxaan jeclahaa bulshadayda inaan lacag ku bixiyo deetana arko ayadoo horumar gaadhay ninkii labaad baa la weydiiyey isla su-aasha lafteedii wuxuu ku jawaabay waxaan jeclahaa inaanan lacag ku bixin laakiin aan arko inay ahaato bulsho horumartay laakiin inaan shilin ku bixiyo mar raba ayuu ninkaas ku jawaabay ninkii ugu dambeeyey oo saddexaad baa wuxuu yidhi waxaan jeclahay inaanan arag wiyo bulshadayda oo horumar leh lacag inaan ku bixiyana mar rabo saddexdaani marka waa 3 kategori waxaa marka farxad ii ah inaan caawa arko dadkii oo noqday ninkii koowaad dhammaantiin waxaad noqotay ninkii koowaad haddaanan magacaabo nimanka ninka koowaad waa deeqsi waana nin aan xaasid ahayn ninka labaadna waa nin aan deeqsi ahayn laakiin aan xaasid ahayn oo dadku inay wax noqdaan ku jecel yahay laakiin xoogaada bakhaylnimadu waa traits ilaahay bixiyo weeye ninka ugu dambeeyaana waa xaasid dadku inay wax noqdaan ma jecla waxaa marka farxad iyo wax lagu farxay caaway lacagta halka hadda laga yeeriyay oo aad u tirada badan dadku inay yeeriyeen ayna qaateen category-ga ahaa inuu qofku ku bixiyo dadkiisa si uu u arko ayagoo horumaray waxaa kaloo ayaduna xusub mudan in la dareemo waxbarashadu inay tahay wax muhiim ah dhalinyarada halkan caaway jaamacadda noo soo dhigtay waxaa cajiib ah oo qalbigiina aad gelisaan inayba adag tahay in la dareemo iyadoo la joogo North America wadankii waxa ka jira qofku inuu u gurmado way adag tahay marka waa arrin cajiib ah ayana oo unique ah ma aha runtii wax sahlan sababtoo ah way sheegaya waxaa hadda ka hor dhacday wiil yar baa waxaa la yidhi oo nin tijaar dhalay baa wuxuu la yidhi aabu gaajo maxaa la yidhahdaa macnaha dadku ka hadlaya gaajo arkay deeto odayga wuxuu yidhi anaa ku baraya aabu maamadii uu la hadlo wuxuu yidhi wiilka 7 beri ama intuu adigu ka qayliyo gaajo darteed waxba ha siinin biyo waxna cabsiinin wiilkii maalinka dambe uu qayliyay wuxuu iska qayliyay maxaa ku dhacay maxaa la qaylinaysaa wuxuu yidhi aniga runtii wuxuu yidhi cuntaan rabaa waxa la cunto male cunto waa dhamaataan wax la hayana male waa la joogay maalinka dambe uu qayliyay waxa la yidhi waxa ku hayo waxa weeyaan la yidhi waa gaajo markaasuu ogaada gaajada macnaheeda annaga barwaaqada aan ku jirna darteed waxaa laga yaabaa in badan oo naga badan inaysan dareemin dhibaatada halkaa ka jirta marka waa mahadsan yihiin dhalinyaradu hadda ilaahayna waa sheego waa ka yidhi وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم أحد ميت أنتم سنة معناها إلهي وكيل أنتنا دمن كهر وحبحية وحر marka taas ayaa maaragtay iyaduna xal waana ku deen waa mahadsantiin dhalinyarada ilaahay ha barakeeyo amiin hay walaal ilaahay ha barakeeyo ayaga duniyadooda wax bixintu waxay barakeysaa duniyada ciyaar ma ahan 7 generations or more bay waxay qabtaa marka intaas aan kaga baxayaa waqtiga inaan siin diro mar rabo I hope mawduucan education inaan u heli lahaa waqti badan laakiin dhalinyarada waxa la yiri waqti baayar waxaan rabaa marka inaan our next speaker oo keynote keena ah Dr. Shire runtii dadku anigu intaan ka aqaano Shire way yaray laakiin kadib markaan wax badan ka akhriyay journaladiisa iyo qoraaladiisa si fiican u galay waxaan ogaaday inuu yahay advocate waxaan ogaaday inuu yahay mentor waxaan ogaaday inuu yahay waxaan ogaaday inuu yahay nin xorriyadda u daga haddii macnaha xilligii SYL ka joogi lahaa Shire waxaan qabaa inuu ahaan lahaa member of SYL inta marnaba nasiibkaan u garan laakiin waxaan new SYL baan ugu yeeri karnaa wax kaloo hadda aan u oran karo ma jiraan ku soo dhawow Shire دلوقتي وهنسوي عادي أنا واليوم هذا فرصة غالية والسيسان إلى أن يكسر الضوء مجال الرهايو كنت واحدة مما نصحت لوجهها وأن شاء الله إلى أن يلوم لأنه فرصة محل غير يوم تقول هذه أنا أما بعد فكرة وسع يعني منها كهرباء
marka aad baan ugu xumahay inaan waqti dambe ay noqotay marka awalan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shakhsiyaadkii isku howlay wixii caawa halkay ka dhacay oo aan arkaynay in ay suurto gasho waxaan kale waan u mahadcelinayaa qof kasta ee Soomaaliya oo muslim ah ee ka qayb qaatay dhaqaalihii caawa halkan la ururiyey runtii qaylo badan baa reerku ii tirinayay anigoo reerkaygii London degan yahay markii la yidhi waxaa loo ururay dhaqaalaha jaamacadda dhisahay ayaa waxaan idhi diyaar waan ahay waa imanaya London waxaan transit ku ahaa sidee bilood ma arag reerkaygii xamar baan toos u joogay toos baan usoo duulay dubay baan diyaaradda ka qaatay marmaysanaysaan reerkayga uguhorda maadan caalamkaa badan ay u sheegayso inaan London 2 saac transit ku ahaa airport kuma sheegin balse caawa markay arkaan carruurtayda iyo xaasku waxay runtii wixii aan u sheegay way ku qaracayaan mar alla markaan intaan xamri jooga ciyaalku waxay leeyihin aabba meeshaan dhaatar wey isaga soo marka waa toban carruur aan leeyahay runtii intii badan waa qoreen shanna awow aan u ahay marka waxaan u sheegaa ku yidhaahdaa ilmaha halka ku koray runtii markaad si macquul u aadasho waxbay garanayaan waxaan ku aabe ka warrama hotelka aan deganahay guri ku dhegan baan shaah laygu caasumay gurigii markaan garaacay wiil yar oo 5 jir ayaa iga furay wiilku waa nin yar oo fariida siduu hadlaya waa 5 jir waa ciyaalkan jawhar binaha ku dhashay weye balse halka ayuu soo dhahay wiilkii waa maxaa rabtaa gurigaan rabaa ciddaa binaha shacra lagu yeera wiilku waa qaawaya dhar ma qabo ma labisa sarwaalna ma wato shaarna ma wato waa yar 5 jir waxaan kuri dharkaagii mee markaasuu yidhi dharkii waa lay waray buu yidhi waa lay dhar wuxuu ku bedeshay bal wuxuu ku dhaqaansado micnaha mala ilmahaygii baan u sheegay waxaan ku iri carruurta Soomaaliyeed ayaa waxay iga sugayaan in dhar ay ku dhaqaansadaan rajada inaan geliyo runtii waa wadi karaa oo micnaha xogta aan u dooratay Soomaaliya inaan dalka tago anigoo aan 88 ka yimid ingiriiska nimid wasaaradda caafimaadka u shaqeynayay waxaan ahaa dadkii loo tababaray la filayay sanadka 2000 daryeel caafimaad ee loo leeyahay dalka inay gaarsiiyaan 86 ayaa shir ka dhacay raashka magaalada Almaata waxaa dowladda joogay wadamadii memberka ah waxaan ku gaaray adduunka in la gaarsiiyo adigu waxaan ka mid ahaa dadkii markaa lagu fakerayo noqdaan niman cadaan oo gaalaha markaa baysaro noo ahaa baa yidhi warniyow ka waran haddaan dowladda kuu dirro oo maxaa dhacay waxaa la arkaya inaad xortaysan tahay dalku rajuu leeyahay adiga iyo rag kula mid haddii wasaaradda caafimaadka qaybta policy unitka ama jaangoynta siyaasadda aad gashaan marka ka waran maxaa kala qabaan karo sidii baan dalkii ku yimid jaydkii adigu nasiib darro suurtagal ma noqonin ummadii uga faa'iideeyo wixii aan soo bartay balse siyaabo kale ummadda aan u caawini karaya ma caawino intii tabarta yahay habeen habeenada ka mida marka anigoo runtii issaluugaya aniga iyo wixii ila mida maadaama aan dalka dayacnay ayaa TV-ga anoo fiirsanaya waxaan arkay rag inay ahayd ama inay mudnaayeen in la dilo oo haddana madaxnimadii dalka isku soo taagaya haddii lay doorto dalka diinta ku maamuli lahaa buu leeyahay weligeena sugaan ma qorin eray sugaana afkayga kama iman TV-gana saa eegay waxaan dalahay TV-gana iska jiran jibiya caadii aan caraysnaa haddana waxaan adiga unbaa haddana soo iibin doona waxaan ku aansanay inaan marka caadii iyo ciidkii yahay meel wanaada aado odayaashu markay daadeedu kala galaan adigu konton iyo waxaan jiraa
bilooyin badan inta kale lama sheegaya marka intaanadu gargaara jiifka hada meel jiifka ayaa aaday khudbadii aan ugu talagalay waa noo dhibanta ama bacda markaan gaaro waa nii sheegaya markii aan jiifkii tagay macnoo ordahaya waxaan weligay ahad wax ma qorin waa 2009kii wey dhow hadda ilaa 5 sano ka hor waxna ma qoro waxna ma aqriyo sugaanta marka laga hadlayo nimanka ciilkoodii baa laakirahayay anoo saa u ordahayay oo treadmillka ku ordahaya ayaan waxaan soo xusuustay nimankii warlordska la oran jiray ninkii lahaa hallay doorto dadka diinta ku maamulay dadkana leen jiray baa waxaa igu soo dhacay yaan la dooran ashaaladir dalka baabaashay dhiig ku daadiyey maya raalahaada intaa markay igu soo dhacday aan ka degay mashiinkii gabar madow oo jaanad waa xustaan magaceeda la yidhaaho jaanad please do you mind if I borrow your pen please also give me an A4 paper one see or ala see iyo qalin adigu halkiiba micnaha ma joojinahayo yaa la dooran ashalka inuu xukumo diiday haddaad dhahdana midi daabadayo dhagax kugu dila qabri duug ahaa dib u faagaya yaa la dooran yaa la dooran waa soo asturmaayadii ruux dibad ka yimi dahabadu qabiyo ubadkii dayacay datoor sheegtayo dowladdii la dhiso haddaan lagu daray hadba diidayo baasabor dal kale ku dalciisaya yaa la dooran waninkii odaga tokurhalaysiyo dalkii baan aadayaa marka waxaan dalku wuxuu rabaa geesi daacadoo dambi aan ka gelin ilaahay dartii u dadaalayo dayar iyo maskiin dumar iyo caruur isku tumahaya weligeed kaliga hala doortakaa marka qofka asaanka maamadaaginayo markii sugaantii sidaa u timid la ii dhiibay mise alla leh amar baa jira waxaan ilaahay ku dhibay xikmad baa ku jirta guriga haddaad la fadhiso saa u fadhido haddii waa lagu cadaabaya malaha armay fiican tahay inaad micnaha barnaamijka kadibna haddii inta kale history bay ahayd oo qaybta khudbada ugu dambaysa jeclaa oo tabliiqa wadaniga qayladhaan haddaad maqasheen aniga culimmada hadda saaxiibaana waa israacnaa iyaguna diinta baabeen aniguna tabliiqa wadaniga xubbu wadan waxaa la yidhaha waad aragteen calaamaha haddaad soo maraysaan masaajidka marka innaha la ducaynayo wadankaa loo duceeya madaxda loo duceeya qoladayda hataa loo duceeya waa iska fiican tahay iyadoo ka tashan doona haddii ala yidhaha marka intaa runtii waxaan isleeyahay waa xurtada iyo waxaa iga keenay jacaylka adina waxaan kaga mahad celinaya sidaa adii sharafteen oo $150,000 caawa oo jeclaan lahaa in kaameradayda iyo bahasha $150,000 isqabtaan iyo dhalinyaradii abaamushay iyo dadkii lacagta dhiiboo dhan inaan isla basawiro oo dhexda ka galo waan jeclaan lahaa markii barnaamijku u dhanaa ama bacd وجعلها وانا اكتب انت بدل ما كلمت فيها كلمه عربيه لكن عارفه الموضوع المقطع يحكي waxaan u jeclahay wax kalaba ninaan garanayo hortaysan oo dadkan aan diinta ku qarabtan dood waxaanu galnay TV-ga sidaan u doonaynay oo TV-gi marka ama bacda inta aqriyay wadacadii ayuu marka aniga weerar ku qaaday ninkaan kale bas markii intaad fakeraan waxaan inta badan wadaadadu sheekaday bilaabaan ama bacda dabadeed beentooda way xumahay banaystaan waxaan ka wadaa wadaadadoo dhan waxaan kuri inta badan ma wadaadada ma waa meelaha qiil baan reebanay wadaadada iyada fiican kuma jira waa kuwa diinta ku qaratooda marka daawata waxaan runtii idiin soo hor istaagay kaga idiin soo hor kala muuqday inaan dhowr area ama saddex ay tamaan meelaha wax ka yidhaahdo kow doorka waxbarashada ay leedahay waxaan idhahdaa waxbarashadu waa halbeegga ugu weyn ee horumarka dal labo tabliiqa wadaniga qeernaan oo hadda isaga ku bilaabaad moodaa in aan isna wax ka idhaahdo iyo saddex iyo dalkii wixii aan kusoo arkay siday tahay iyo dhaliilaha jira inkastoo aysan habboonayn marxalada aygaan oo kale ah balse inaad xoogaa noqotaan waa loo baahanya ma filahayo marka inay suurtagal noqon karto intaa inaan micnaha caawa dhan aan ka baxno
waxay noqon doontaa inaan adigu wixii aan ka gaari karno aanu ka gaarsiino waxaan halkaan markaa aadan waxaan jeclaan lahaa marka in marka hore bal aan ku bilaabo ka qaybgalkii anigu qaybgeli lahaa waxbarashadu doorka ay micnaha horumarka nolosha ay ku leedahay aadan ayaa waxaan rajaynayaa khudbadii oo qoraal ayna halkaas aad ka arki doontaan haddii la yidhaahdo anna waa diyaar garoobhayaa oo ah qorshaha iyo iglalidda jaamacadda galgaduud inaan yaro bineexiyo ama iftiimiyo qodobo muhiim ah oo isweydiin mudan dunida maanta aynu ku nool nahay waxaa wadaha ku dhaqani dhammaantood ay ku haminayaan horumarka halbeegga uga caansan ee 1930 waxaa lagu cabiri jiray waxaa loo yaqaana afka qalaad gross domestic product ama GDP waxa la yidhaahdo ama kobac wax soo saar qaran iyo gross domestic per capita oo ah kobac wax soo saar qof ahaaneed innaha labadooda marka la isku daro ayaa inta badan lagu cabiraa dalka wax soo saarkiisa haddaba waxaa la ogaaday dhowaan in halbeeggan uunan si dhab ah uga tarjumayn horumarka uu qaran gaaray balse loo baahan yahay in qaab kale la helo oo horumarka lagu cabiro doodeer iyo cilmi baaris dabadeed waxaa la isla ogaaday oo la fiiriyey in ay jiraan qaabab kale ee lagu cabiri karo dalalka dhaqaalahooda waxaa la isweydiiyey marka waa maxay qaabka ugu habboon jawaabta oo noqotay mid soo noqotay waxa uu biyadhaci noqday barwaaqo haddanima barwaaqo doonan ma jiro haddaad xustaan berigii dowladda dhexe waxaa la odhan jiray heesahan aysan jirin waxaa ka mid ahaa nolol iyo raaxo jaalamadoni haddaad xustaan intayda muddaa nolol iyo raaxo jaalamadoni daadoni marka halbeegii wuxuu noqday in la yidhaahdo waa in barwaaqada si kale loo cabiraa kadibna waxaa la isla gartay in 8 qodob oo runtii asaasi u ah lagu eegi karo micnaha barwaaqada ayaa misana la yidhi sidee baanu ku cabirnaa dabadeed 8 halbeeg ayaa la sameeyey oo lagu qiyaaso hodanimada iyo barwaaqada dalalka adduunka halbeegyada lagu cabiro barwaaqada waa kuwan soo socda dhaqaale waa economy oo micnaha isugu jira kii aan hadda ka hadlayno gross domestic product oo ah kan micnaha qaranka iyo kan qofeedba waxa dhinaca dhaqaalaha waxbarashadu iyadana waxay ka mid tahay halbeegyada 8 ah oo iyana sidoo kale lagu eego barwaaqada dal walba waxbarashada dad badan baa ka hadlay marnaba waqti badan micnaha iyadana ku lumiyo hantidane waa social capital waxa la yidhaahdo iyada lafteedu waxay ka mid tahay halbeegyada la fiiriyo in dalkaas iyo dadka ku noolba barwaaqada inta ay la eg tahay xorriyadda shakhsigu uu haysto waa personal freedom taa waxaa la ogaaday waa suurtagal in dad inta lagu shaqeeyo in muddo sida dowladihii hantiwadaagii sovietko kale horumar waa la gaari karaa balse iyana waxaa la isku raacay in qofku hadduusan xor ahayn ee uusan haysan xorriyad in horumarku barwaaqadu aysan socon karin in muddo ah balse in yaroo kooban ay socon karto ammaanka iyo xasiloonida doorka ammaanku uu ku leeyahay horumarka iyo barwaaqadu waa wax micnaha la isla ogyahay waxaan ka arki doonaa micnaha taybalada soo socda meel aan ammaan jirin ma ahaato noloshii urugiya xanuun qaro ama islaamnimo aad tiri waa marka annagu aan leenahay waa maya marka doorka iyadana ku leedahay caafimaadku isna wuxuu ka mid yahay halbeegga lagu cabiro barwaaqada caafimaadka marka la macnaynayo intii aan ogaa waxa weeye what's the meaning of health when someone is mentally and physically and socially fit oo ah qofku marka uu maskaxda iyo jir ahaan iyo bulsho ahaan oo caafimaad qabo ma qabo aniga fikirkayga aragtidayda inuu jiro qof Soomaaliya ee 3 shuruudood buuxin kara haddii aad caafimaad adigu aad qabto environmentigii ama jawigii aad ku jirtay ama socialkii ayaan caafimaad qabo aniga hadda idiin sheegahay saaxiibkay baa dhintay nin madfac agtiisa ku dhacay nin kaloo la socday waxaa lay sheegahayay oo ninaan diyaaradda soo saarnay sheegahayay 2 nin oo mid dhaawacmay gaari gacan ku waday
ayaa kii kale madfac ku agdhacay ku dhaawacmay kii gaargacanka lagu waday iyo kii kaleba intay gaargacan ka careen orod marka waxaad dareemaysaa halkaad ka arki kartaa micnaha qofka intaa loo sheegayo micnaha ma caafimaad qabo anigu ma caafimaad qabo maxaa yeelay dadkaygii iyo dalkaygii baan caafimaad qabin marka taa waa la isku haystaayo qoladii hadda ismoodaysa inaan caafimaad qabna waa dhib badan hadda waad arkaysan riwaayadda qolada dhigaysa waxay isku haystaan waa social problems oo aad garanaysaan micnaha aabihii iyo hooyadiiba dhaqaalihii iyo wixii dhan marka caafimaadku qayb buu ka yahay maamul wanaagga governance micnaha waxaa la ogaaday hadda dalkan Switzerland dalalka ugu horreeya ku jira marka iyadana qayb bay ka tahay waa ka xumay waa boobsiinaya maxaa yeelay waqti ma jiro waqti ciriiriya ayaan dareemaya maxaa yeelay waqtiga limid baan garanayaa fursadaha iyo hal-abuur shaqo waa entrepreneurship iyo opportunity meelaan haddii chance u sii jiro Soomaaliya boqolkiiba 90 chance ma jiro shaqa ma jirto therefore halbeego halkee baa kara waa garan karaysaa waxbarashadu marka ay gunda degto waxay horseed u noqotaa horumar baaxad leh waxayna abuurtaa bulsho hagi kartaa dadka intaan soo soconaan waxaan u sheegay nin doctor saaxiibna waxaan kusii jeedaa high clubs waxbarashada doorka ay ka leedahay nolosha ayaan rabaa inaad wax iga sheegto marka hadalladu ii sheegaya qoraxay marka waxbarashadu gunda degto waa macno weyn ayaa ku jira waad arkaysaa inta qofka Soomaaliga markuu xoogaa barto sida ku sheegay ama ha ahaato aqoon diimeed ama ha ahaato mid kale waxaad arkaysaa isagii haddii lambar mahaya macallimiintii wixii dhan waa carabiga ma aqaan laakiin markii dambe iga qabato waa ku hadli karaa qalin cilmiga qalbiga saaxiibu ayaa la yiraahdaa oo ka waa little knowledge is dangerous marka waxaad arkaysaa aqoontii jirin in dadku micnaha ay isla horteynayaan warkii wariye dhamaantii haddaba albaabka kor ku xusan marka la wada eego dhammaan ayaa si dhab ah loo qiyaasi karaa horumarka inta si cilmiyeysan waa ujeedka dhan anigu dan leeyahay waxa weeye in jaamacaddan ay noqoto jaamacad ka duwan jaamacadaha jira xoogaal baan ahay dalka iyo gudahaba iyo dibaddaba marka taa weeye waxaa baaritaan ku fadhiya halbeegyada barwaaqada sameeyey macad la yidhaahdo Langham Institute oo aan ka codsanayo Adam in micnaha shaxda ama tus doona dhawaan ilaa waxay bilaabeen 2009kii ilaa 6 sano ayuu socday waxay soo saareen warbixin soo bandhigaya xog laga qaaday 142 dal ayaa macluumaad halbeegyadaas iyadoo la isticmaalayo laga qaaday la soo bandhigay nasiib darro Soomaaliya sama xaadirin kuma aana jirin anagu waa duruufaha jira oo wada garanayna dhammaanteeda xogtani waxay dal waliba cabirtay barwaaqada uu gaaray iyadoo la adeegsanayo halbeegyada aan kor ku soo xusnay oo halbeeg waliba uu madax bannaan yahay dabadeedna la isku daray dalkaas waxa uu helay duubduub ahaan waa average marka la isku daro 8 inaha oo dhibacyo iyo inaha points la siiyey ayaa dal walba lagu qiimeeyay halbeegyada dalalka adduunka waxa uu qaybiyay 4 ayaa loo qaybiyay dalal sareeya waa high kuwan ay leeyihiin marka buundooyin baa la siiyay dalalka sare waxa la siiyey 1 ilaa 30 sida aad ku arkaysaan may waxaan rabaa kii kale oo google-ka haddii aad heli yes koruka kor ha right waxaad arkaysaan dhanka bidix oo buluuga ah waxaa idin muuqda waxaa weeye dalal hoose iyaguna 142 anigoon idinku dheeraynin dib haddaad kor igu celiso tablekan ama shaxdan waxa weeye waa qiimayntii lagu sameeyey 142 dal iyadoo 8 qodob oo aan idiin soo sheegay halbeeg laga hadlayo dalka ugu horeeya number 1 galay waa Norway 4 sano micnaha isku xigtay number 1 ayuu galay kor waad arkaysaan waa 3 7 dhibcaha aad arkaysaan ama buundooyinka lagu qareebo nambarada waxa weeye mid walba number ayay siiyeen qoladii Langham Institute-ka Mareykanka oo ah dalkan aad joogtaan ku nooshiin oo aad soo aadeen kaalin tobnaad buugan
وهكا كيك أو أمريكا United States of America أو هل أنتم لا بكرة هذا ما سيدا لو برجر وين هاي منها هذا فرنجر كوا هاي بكرة أنا روح وينو نمي واي بربعنا من تأكلي ما سوريا دقال هذا سكية أو نحمر منها كسر على أوجه وحي كبح هذه سدتني له سنة كلامه كوني السجال وحي نقول على بقول يلا تاني السجال بقول يلا تاني السجال 129 سبعة رتات مسير يوم هلكا waxaad arkaysaa sida ay macnaha nabadgelyadu xumadu ay saameynta ugu leedahay dal walba dalka Afrika dhamaantood waxay dhamaan ku jiraan dhexe hoose ama hoose ay ku wada jiraan Djibouti oo walaalaheena noogu dhow waxay ku jirtaa 119 waa ciidamada hil qaran oo walaal macnaha noo soo direen tabartoodana macnaha waad arkaysaa Ethiopia iyaduna boqol iyo waxa weeye 26 hadda sida ma loo kala ciidan badan yahay loo kala dhaqaale badan adduunka waxa marka ugu hooseeya hadda aragtaan shacabka hoose 142 waxa galay waa Central Africa waad garan karaysaa sababta aduu dagaalada sokeeyay wax badan oo isku darsoomay ayaa midna dhibka inta markaan ka gudba hadaba walaalayaal halbeegan waxaan idinku soo bandhigay inaad indhihiina ku aragtaan indhihiina ku furtaan adduunka sida dhamaan loo wada higsanayo barwaaqo waxbarashada marka aynu abaarayno waa in uu higsigeenu noqdaa mid ku salaysan sida adduunku loola tartamo sidee u tayeynaa waxbarashadeena jaamacado fara badan ayaa ka furmay geyga Soomaaliyeed maadaama ka gaadhay balse waa inagu ceeb inaanu soo saarno arday qalin jabisay oo aanu yeerno jaamiciin balse aan tayo lahayn waa in aynu ku dadaalnaa tayeynta jaamacadda Galguduud si ay u noqoto hormood habka waxbarashada cusub ee Soomaaliya iyada oo la falgalaysa hababka casriyeysan ee waxbarashada adduunka loo hormarinayo waxbarashadu waxay si toos ah u saamaysaa halbeeg waliba oo horumar iyo barwaaqo u qaran ku gaar oo halbeegyadii aan soo sheegay inta aad arkaysaan caafimaad haday noqon lahayd haday dhaqaale noqon lahayd haddii ay noqon lahayd nabadgelyo ciidan wax kasta haday noqon lahayd wax walba waxbarashada ay macnaha xiriir ay la leedahay waxayna horseed u tahay abuurista shacab tayo leh yaglalida fursado shaqo abuur kor u qaadista aqoonta caafimaadka bulshada taabagelinta maamul wanaagga kobaca dhaqaale oo ay jaamiciyiintu dardargeliyaan fahamka xorriyadda shakhsi ahaaneed iyo adkaynta ammaanka iyo xasiloonida waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga waxbarashada aan ku dadaalno dhisideeda oo aynu ka soo dhisno dugsiyada hoose si jaamacadaheennu ay tayo u yeeshaan intaa waa dhinaca waxbarashada waxaan jeclaan lahaa tabliiqi qaladhaan iyo barnaamijkaasna waa na sugahayaa wixii aan Soomaaliya iyo wanaagga iyo dhibaatada jirtana iyadoo waa na sugaysaa haddee ma rabo inaan noqdo micnaha doqon xajo helay oo mikrofoonka jecel isaga dhagaraan ma rabo fursadaan oo kalena ima soo mari doonto ma garanahayo marka حل وعلى جنبه عدد كي أقول هاي هذا اللي دي وضعه ولا هي هذه اللي دي قلنا سنة وبيش مركا تاسو حياة الدنيا وحبرشة عمر عروبا كله لا إنت أفسد كل جنا هي بيشو ده ما تقدر معناها تكون رجل إنسان ما واحد بس إنما هي رات قبيل كورة ترى هي بيشو مركا هو وين تذكرنا aniga waxaan iraahdaa waa in warba joogta iyo dadka waxaan kala oran jiray qorax joogta marka anigii labadan hadda u dhaxaya magac waan la helaa aniga warba joogna ma ay dadkii dalka si jooganay ma marka xoogaan fara badan baan dhinaca u ahay taa marka ka gudbo runtii wax badan oo qabsoomay waa yar yihiin aad duruufo jira awgood oo dalka ku heerarsan
Soomaalidu hadalka waxay ka jecel yihiin baan isleeyahay inta badan in sugaan loogu sheego buug dhan haddii ilaahay dhowr iyo boqol page marka waxaan jeclaan lahaa maybe dalka waxa ka jira inaan bal hareeyay rabnaa ku cabiro dalka waxaan dib ugu laabtay anigoo aaminsan fikirkan aan rabnaa idiin sheegay oo ah dalkayga miyaa hagaagay ma dowladnimo ay tiintay haddii madaxweyne doora dalkeenni loo xilsaaray haddaan dibadday ku joogo dadkeenna u soo dagaagay haddaana ka daadguraysan fikirka waa eraya socdii bayqaadaya ku tegay inaad xoogaan u noqotaanna waa wax muhiima in anigoon ujeeddo kale iyo xumaan kale aan ka samayn bishii January sanadkan ayaan waxaan arkay sida wax u socdaan shacabku waa wanaagsan yahay aad bay diyaar ugu yihiin dowladda qabyaaladu ma jirto balse qolooyinka diinta ku qaraabta iyo kuwa siyaasadda ku qaraabta oo aan shacabka intaba ehel u ahayn waa waxaan dareemay in ay habboon tahay in micnaha iyana lala hadlo wax la yidhaahdo marka waxaan sameeyey erayo aanan weli soo saarin balse caawa adinku aad ugu horeysaan wax dhegaysta inkastoo shaksiya waa qiimayntii aan magaalada ku sameeyey iyo wixii aan ku arkay shacabka wanaagsan balse dhibaato guuda caama dhinacii micnaha ay ka jirto waxaan magaalada xamar aad baan u jeclahay waa meeshaan adduunka ugu jeclahay waa meeshaan caabuda ka jeclahay xaqiiqo wey waa xadiis anuu ma qariyo waxaan ahay mog haddana garbaanay baan laga yaabaa kasii wada jeclaa labadaba marka waxaan idhi magaaladii markaan kusoo laabtay arkay nolosha isbeddel badan shacabkii inuusan jirin ayaa waxaa igu sug dhacay anigu sidayda haddii assignment laysiiyo xataa wax ma qori karo balse waxaan idhahdaa waa inuu migis ugu dhaca calaqad layn karaa layga tumaa gabdhacdii aan idhahdaa saasa wax ku qorantay marka adigu erayadaa ayar marka aan qoray waan leeyahay magaaladan jeclaay sanada ka maqnaay muddo aanu jeelaay maalmahan qaxootiga ku ahaa madluunkee marna kuma hilmaamine hayladhaanta maansada tii aan ka mariya muqdishoy macaanay markii aan dib ku imid een galay magaalada maamulaan xaq sooray maatida daryeelay ku yagaleelan magac diin sida midab gumaysiga labadii mataanaa midkii aan xisbigu wada marti uu ka yahayba ka ahaa marqaato milalkii xanuunka marna aanan qarin karin ma adkaysan karaya ha maqleen dadweyne waxay iga maraysaa maalintii rasuulkeen salawaatullaahi calayhi salaatu wasalaam magaaladii uu jeclaa dusha intuu ka midixsaday maka uu ka haajiray masiibooyinkii dhacay kama aadan mayrane maca salaama xamaray makuu oran karaaye mawluuc cidkoobe waxa weeye shacabku waa diyaar horumar ballaaran oo baaxad leh ayay wadaan waxaase ku habsaday cidnaha hoggaan xumo waa xaqiiqo wey waa raalli halayga ahaada haddii lacala hortada ila gasha meelo ma ahan inaan micnaha marka waxaan idin leeyahay dal waxaa bedela waa dhalinyarada waxaan intaan kugu sheegahayaa waxaan intaan kugu sheegayaa in aad bedeli kartaan dalkan iyaga isaga magaalo kasta waxaad ka qaban kartaa qabyaaladii ay ka tagtay inaad ku noqotaan micnaha loo baahan yahay hoggaankii berito anigu berigaan yaraa oo dugsiga hoose dhiganaya waxaa la oran jiray madaxdii berita tahay marka nimanka madaxda inta noo yimaada madaxa noo salaaxa haddana madaxdii berito weli marka ma rabno waxa annaga ay u dhacay adinkay ku dhacaa marka u howlgala dalka sidaad u badbaadin lahayseen waa codsi aan micnaha ka codsanay waa qeeldhaan aan dalka ka wadan weye shacabka soomaaliya waa idin sugayaa magaalo walba waa diyaar simbal waxay u baahan tahay konton qof oo sidai caalamka u abaabushay ee dalka isagaa badbaadisa imagine qolada gaalada micnaha ka koobanayga hadda soomaaliya lacag ugu yabo haysay
بلجم هو يوايسي ما جرى دان مقالك استطرنا أنت عن معناها لو يبغى مقالك استو الصومالية واحد استعمل كقبل كنا إذا ما ضيع الصومالية ما إنه مشاعر قري كنا بالوضع وأنه دي كنا أم سوميو يودي مريك كي عدول بابا أنا لنا مايا أنا بيا صعبة أنا بدرجة أنا أي علمه بيلاني مركب وحنا كعب صار هي دلك وحنا سوى هي ذين كوي عقلي ذين كوي شعب وناسية ويد سوى هي ديار وذي هاي مدحني بريتو مدحني ما أنت أنا مطلب باللوبة هي دقيقة دي وانا ما تام ولا هي مركلة وحن كجماعة عليا سيدا هذه وشرفتها إيمانك هي منها هو من هالفكر غير كي نصدر المرة ديارات نصدر منها هذه وشرفتها أو أنا كنت وقتها هذا في عمري وأنا خلاص أنا وسألت دورنا وحن رد دورنا وربط غيرنا بيس بان منها كسر ويصدرنا وحن كفكرين منها هذا اللي رجل يصير كنا في روحنا كنا صدرنا ما أنا أساس عندنا ما نعمل يصلح وشرفتنا ووقتي فربنا نرجوه عندنا هي ربنا ما نعمل وقتها في ماله وعندنا حفلة سيان عندنا ما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.